بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan ku guda jirnay buugga maadada sayniska fasalka labaad ee dugsiga hoose. Waxaan ku guda jirnay cutubka saddexaad oo aan ku daraasaynayna xayawaanada iyo dhirta. Cashar koowaad waxaan kusoo qaadanay xayawaanada. Casharka labaad waxaan ku qaadanaynaa dhirta. Noocyada dhirta ayaan ku qaadanaynaa. Ardayga waxaa laga rabaa markii uu cutubkan uu dhammaado inuu sheegi karo noocyada dhirta uu sheegi karo ayaa laga rabaa. Iyo sharaxaad guud ka bixin karo dhirta noocyadeeda kala duwan. Insha Allah waxaan u guda gelaynaa casharkeena. Waxqabad ayuu ka hormaraya. Waxqabadka sagaalaad waxa aan baranaynaa noocyada dhirta ee sawirkooda hoose ka muuqda. Sawirka koowaad waxaa loo yaqaanaa moos waaye, magaciisa hoose ku qoran yahay. Sawirka labaad waa cambe waaye. Sawirka saddexaad waa qaro waaye. Sawirka afraad waa qurac waaye. Sawirka shanaadna waxa waaye tiin waaye. Sawirka lixaadna waxa waaye geed qumbe waaye. Geed qumbe. Okay. Geeduhu waxa ay u kala baxaan ama u kala qaybsamaan saddex nooc oo kala ah. Waa geed dheer. Waa geedka waxa waaye laamihiisa kor u baxaan. Waxaa loo yaqaanaa oo geed dheer. Sidoo kale geedka oo ulaha iyo alwaaxa iyo oo dhalaana ayaa waxaa loo yaqaanaa geed dheer. Geed gaab waa geedka waxa laamihiisa oo jiiftaan ama waxa waaye laamo yar leh oo xooganayn leh ayaa waxaa loo yaqaanaa geed gaab loo yaqaanaa. Iyo cos. Cos waxa waaye laamo khafiif ayuu leeyahay isagana waa dhulka ku dhagan yahay badanaa. Marka geedka dheer ayaan ku hormaraynaa. Geedka dheer waa geed jiridiisu ay dheer tahay oo laamihiisuna laamo kale ay kasii baxaan. Geedkan yacni laamo oo dheer ayuu dhalayaa. Laamahaas oo dheerna laamo ayaa kasii farcamayaan. Laamahaas kasii farcamayaan laamo kale kasii farcamayaan marka. Kaas waxaa loo yaqaanaa marka geed dheer ayaa loo yaqaanaa. Waxaa ka mid ah marka quraca ayaa ka mid ah. Geed talaalka ayaa ka mid ah. Marka waa badiyin geedaas. Geed talaalka ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah garaska ayaa ka mid ah. Okay, geed gaab. Geed gaab waa geed ka gaaban geedka dheer. Geedka dheer ayuu ka gaaban yahay yacni. Geedka dheer ma gaaro marka wuu ka gaaban yahay. Waxa uuna leeyahay dhowr jiridood ayuu leeyahay. Geedkan wuxuu leeyahay dhowr jiridood ayuu leeyahay. Waxaa ka mid ah marka geedahaasi oo geed gaabka ah oo dacarta ayaa ka mid ah. Dacarta ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah bocorka ayaa ka mid ah. Bocorka ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah karootada ayaa ka mid ah. Okay. Coos. Geedka cooska waa dhir ka gaaban geed gaabka ayuu ka gaaban yahay. Coosku jirid ma lahan waxa uu leeyahay laamo dhudhuuban ayuu leeyahay oo inta badan dhaadheer. Marka jirid yacni ma lahan. Marka wuxuu iska saaran yahay marka carrada qaybtiisa kore ayuu iska saaran yahay. Marka waa geed oo jirid aan lahayn. Marka xididiisa ayaa dhulka badanaa oo saaid ay ugu jiraan. Marka oo jirid oo adag ma lahan yacni. Laamo dhudhuuban ayuu leeyahay oo inta badan. Waxaa ka mid ah balambalka ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah baarta ayaa ka mid ah. Kurtada ayaa ka mid ah. Soomaalida qaar ma yaqaanaan kolbe. Bukuriyada ayaa ka mid ah. Okay, waxqabadka tobanaad waxa aan
u baxayaa bannaanka fasalka aniga oo ku guur ku haa aniga oo u kuurgalaya geedaha ka baxaya. Kadibna waxa aan qorayaa magacyada geedaha iyo noocyadooda. Marka ardayda laga rabay laakiin anaga shaqaan dhib badan. Adigna waxa waaye baxda kala samee insha Allah arday saas samee insha Allah baxda kala samee duulada insha Allah. Geedka magaca geedka tusaale waxaa ka mid ah aan leenahay liinta ayaan leenahay liin geedka liinta loo yaqaano. Nooca geedka maxaa waa marka waa geed dheer ama geedo gaagab geedo dheer geed dheer waa yacni. Magaca kale oo labaad geed gaab ka soo qaadanaynaa. Geed gaab oo waxaa ka mid ah geedo kale oo cusub la rabaa geedo kale cusub ayaa la rabaa mulaan marka badanaa reer koonfur waxa waaye dadka reer shabeellada hoose nahay marka haddii geedahaas aad aqoon weyso insha Allah baxthi ku sameysaa. Mulaan ayaa ka mid ah geed gaab waa geed gaab. Okay caws ayaan soo qaadanaynaa kurti ama kurto beeraha ayay ku baxdaa. waxaa waaye marka caws waase marka caws geedka cawska waa cawska. Marka geedaha waa iska badan yihiin marka baxda kusoo samee insha Allah. Ani marka hoogaa tusaale qaabkii looga shaqeynayo leh aan ku tusayay marka baxda kusoo samee insha Allah. Waa saddex hadda marka geed dheer iyo geed gaab noocyo kala soo sheegay insha Allah duulaydmo. Geedaha cawska waxaa ka mid ah kurtada ka mid ah waxaa ka mid ah balanbalka ka mid ah waxaa ka mid ah bukreyda geedaha loo yaqaana ka mid ah cansalaatada ka mid ah. Marka geed gaabna waxaa ka mid ah mulaanka ka mid ah waxaa ka mid ah liilowga ayaa ka mid ah geedo gaagaaban waa. Geedo dhaadheerna waxaa ka mid ah waa liinta ka mid ah liinta ka mid ah waxaa ka mid ah cambaha ka mid ah. Casharka saddexaad qeybaha geedka uu kooban yahay. Waxqabadka 11aad waxaan sheegayaa qeybaha geedka. Geedka wuxuu kooban yahay ubax kow waxaa kooban yahay miro wuxuu kooban yahay caleen wuxuu kooban yahay jirid wuxuu kooban yahay xidid. Meelo marka 6 waa 6 qeybood ayaa uu kooban yahay geedka 6daas ugu waaweyn. Geedka qeybihiisa waaweyn waxaa ka mid ah qeybaha ugu waaweyn waa xididka ka mid ah jirid ayaa ka mid ah caleen iyo miro iyo ubaxa. Laakiin 3daas ayaa ugu waaweyn. Waxaa kaloo ka mid ah marka ubaxa waa miraha. Nambarka 1 waa shaqada qeybaha geedka shaqadooda. Nambarka 1 xididku waa qeybta geedka ee dhulka hoostiisa ku jirta. Waxa uu carrada ka soo nuugaa biyaha shaqadiisu biyaha macdanta iyo nafaqooyinka noocyadooda kala duwan. Dhulkana waxa uu ku hayaa geedka ayuu dhulka ku hayaa. Shaqadiisu waa intaas waa. Shaqadiisa waxa way xididku shaqadiisu maxay tahay? Shaqadiisu waxay tahay biyuhu ayuu soo nuugaa macdanta iyo nafaqada. Geedkan dhulka ayuu ku hayaa. Jirida shaqadeeda maxay tahay? Jirida horta qeexitaankeeda maxaa marka waxa ay ka mid tahay qeybaha geedka
dhulka ka sareeya waaye. Shaqadeedu maxay tahay marka? Waxa ayna isku xirtaa caleemaha iyo xididada ayay isku xirtaa. Jirida shaqadeeda maxay tahay iyada? Waxa ay isku xirtaa caleemaha iyo xididka ayay isku xirtaa ama xididada ayay isku xirtaa. Caleenta shaqadeeda maxay tahay iyada? Waxa ay ka mid tahay qeybaha geedka cafwan caleenta qeexitaankeeda maxaa marka? Maxaa loo yaqaan caleenta? Waxa ay ka mid tahay qeybaha geedka dhulka ka sareeya waana meesha shaqadeedu waana meesha lagu diyaariyo cuntada geedka. Inta badan caleemaha midabkoodu waa cagaariye. Waa maadadan loo yaqaano chlorophyll ayaa xaadir ku ah barsanti ku ah. Waxqabadka 12aad waxa aan magacaabayaa qeybaha geedka ee sawirka ka muuqda. Fileera lagu muujiyay qeybtan waa ubaxa waaye. Qeybtan fileerta lagu muujiyay waxa waa miraha waaye. Qeybtan waxa waa caleenta waaye. Waa jiridii qeybtan waa xididada. Sii soconaynaa. Waxqabadka 13aad waxa aan ka fikirayaa in aan ardayda u sheego 2 shaqo oo ay xididadu geedka u qabtaan. 2 shaqo. 2 shaqo maxaa ka mid ah marka? Geedka waa biyaha, nafaqada iyo macdanta ayay soo nuugaan. Xididadu waxay soo nuugaan nafaqada, biyaha iyo macdanta. Shaqada koowaad ayay soo nuugaan. Shaqada labaad geedka ayay dhulka ku hayaan. Geedka ayay dhulka ku hayaan. Geedka ayay dhulka ku hayaan. 2 shaqo ayay qabtaan. Waxqabadka 14aad anaga oo koox isu qaybinayno. Waxqabadkan ardayda laga rabaa laakiin waa 2aad waaye. Marka inay kasoo shaqeynaysaa laga yaabaa laakiin qaabkii aan ugu shaqeynayo adi marka baxthi kale sii sameysha. Baxthi waxaa la dhahaa tusaalooyin kala raadi insha Allah. oo kuurgalaynaa sawirka geedka waxa aan sheegaynaa 1 halka ay jiridu kaga taalo geedka. Nambar 2 waxtarka ay jiridu u leedahay geedka. Halka ay jiridu kaga taalo geedka. Geedka marka halka jirid ay kaga taalo waxaa ka mid ah marka dhulka ay ka sareysa qaybta soo baxsanaya waxa loo yaqaanaa jirida loo yaqaano. Jiridana shaqadeedu waxay tahay marka in ay geedka qaybihiisa kale ay u gudbiso nafaqooyinka iyo biyaha iyo macdantaba. Sidoo kale shaqadeedu waxay ka mid tahay jiridu waxay u dhaxaysaa ay isku xirtaa xididada iyo caleenta ayay isku xirtaa. Waxqabadka 15aad waxa aan magacaabayaa 2 geed oo jiridoodu kor u baxdo. Waxaa ka mid ah quraca ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah cambaha ayaa ka mid ah. 2 kale nooc kale wax ka dhigi kartaa jiridoodu kor u baxdo. Waxaa ka dhigi kartaa liinta, mooska ayaa dhigi kartaa. 2 geed oo ay jiridoodu dhulka jiifsato. Waxaa ka mid ah bocorka ayaa ka mid ah.
waxaa ka mid ah digirta, digir waaweynta, digirtan oo gaduudan, qayb ka mid ah. Iyadan waxaa jiridooda dhulka ayay jiifsataa. Laba ka mid ah waxaa waaye digirta ayaa ka mid ah, oo digir guduud ah qayb ka mid ah. Bocorka ayaa ka mid ah. Bocorka, qaraha, kuwaas oo dhan marka waxaa waaye laba geed. Waxaan rabnaa marka laba geed oo ay jiridoodu loo isticmaalo cunto ahaan. Karootada ayaa ka mid ah. Karootada ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah moxoga ayaa ka mid ah. Tusaalooyin waa iska badan yihiin marka, oo kuwa jiridooda la isticmaalo. Marka moxoga ka mid ah, xasabka ka mid ah. Marka laba haba ka qaado insha Allah. Halkan ayaa ku ekeenaya. Cutubkiina waa noo dhammaaday. Haddii marka waxaa waaye qaladaad iyo waxyaabahaas aad aragtan, waxaa waaye ila soo wadaaga insha Allah. Iyo haddii waxyaabo in la horumariyo ay u baahan yihiinna ila soo wadaaga insha Allah. waa taladiina u baahana insha Allah, dhiirigelintiina ila soo wadaaga insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.